sawirkii uu ka sheekeeyay imka wasiirku aanu qoladii koonfurta wada galnay waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shacbiga Soomaaliland oo dhan sida feejigan xamaasada leh dhiifoon dal jacaylka ah ee waxay qoonsaan uga jawaabaan ama warkaan dalkooda wax ka dhacay aad baan soo dhaweeyay xamaasadii iyo sida ay dacwo arinta u dareemeen si ay ugu fahmaan markiiba qaran jacaylkooda ku tusaysaa dhiirigelin bay ku siinaysaa kalsooni bay ku siinaysaa inay ummaddu dagaalka iyo qaranka wada simantahay meel ka wada eegayso waxa kale oo iyana kalsoonina inay ka hadlaan hadday arkaan madaxooda waxaan fahamsanayn inay markaaba dhiifoodeen war waa qaranka maxaa dhacay wax loo sheego marka xamaasadda ka kacday ee ninkaas uu sheegay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dawladda kalsooni badan bayna siinaysaa marka amniga halkaasaan kaga harayaa Soomaaliland waxay ka cabato waxa ugu badan madaxweynaha oo wada jooga caaw ana waxaan ahay nin dhaliisha aad u ogol oo aan ka xanaaqin marka la dhaliyo waayo 40 sano mucaarad soo ah 40 sano markii soo dhaliilay mucaarad soo ah soo meel joogtay marka aqliga noqon mayso maanta in la iga boqo qof dhaliilay ama qof iga xanaaqay inuu igala maaga aniga waayo waxaan garanayaa dareenkiisa qofka mucaaradka wuxuu yahay ayaan aad u garanayaa marka uu soo joogsanaya laakiin mucaaradku isna midii ku daray mucaarad baana war cabanaya taydoo la yeelmay cabashada deyn maayo tadalka danta wala yeelay taydana la yeeli maayo ta mucaaradka la yeeli maayo dalka maxaa u darin yeelayna aniga taydoo waa la iga soo dhaqaajin hadda taada waa laga soo dhaqaajin qaranka halka u dhaxay dhigayna ninkay taasi cunto weeydaa isaga gardaran mucaarad maxaafidku yahay taana dastuurka sheegay wada tashiga sheegay wax wada lahaasha sheegay dhibaatooyin baan haysata waxa weeye dadku dawladnimadii aad iyo aad ayaa qalad uga fahmay مثلا waxaanu heshiis ku nahay musuqmaasuq ah la dagaalamo waxaanu heshiis ku nahay sharcigu ha shaqeeyo laakiin waxaan doonayaa oo dalkeen naga soo baxay markii aan talaabo ismi qaada in qofna aanu ogolayn qofka isaga wax isu yihiin ee reerkooda ah in musuqmaasuq lagu qaado dhammaanna waxa lagu canaanaya madaxweynaha musuqmaasuqa jawaabta wax ka qabo haye haddaad kii shanta furuud kula jiray qabatana dagaal reer baa ka cayo cirka u ka cayo maxay kayga loo sheeganay waana dhacday iyadoo xaqiiqana waardinaya waxa kamid ah waxa leeyahay sharciga waxa shaqeeyo qofku hadduu dambi kasta galo oo la wada arkayo oo xataa dil ay tahay ayaa sheekhi ama nin shan salaad tukanaya nin wax dilay u arkayo ayuu doonayaa inuu dambi basuul hada meelaha laga sii daayo sharciga qofka la soo xidhaba shalay halkan aan joogo Ismaaciil yar uu jooga nin baa walaalkii la xidhay meelahan jooga dawladda hoose xidhay waa dhul iyo wax yar telefoon buu ka dhigay Ismaaciil yar in hada shay war maxad leedahay soo ninka dawladdu way qaanatay hal hubsado hatta hal hubsado ee way waan Saciid Cumaati too xidhay walaalkii loo xidhaaba arwaa runtii halkan waa la xidhay wax galiya waa la xidhay sala calee hal isoo marka waxaan u baahanahay labaan is qabanin ma wadi karno sharciga hal fuliyo iyo anaga yaan lagu qaaday iyo yaan lagu qaaday musuqmaasuq hal qabto yaan kan garay la qabanay waxa uu dadka wacigoodii kor loo qaado waa burburkii waa balaadan koonfurta ka soo qaadnay waa wax sii jiitamaya